بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، كتاب الأيمان والنذور داري كتابي هي يا نذر كبو كتابي هي الأيمان وجمع يمين، أصله من اليد اليمنى بلا كان محيي لمركز دارتنيان أما أي بلميان بيقعنت مدكتا سوق منجري شرعها وحل هذا إن الله حقيقيه waxay suurtagal tahay in la khilaafo taxqiiq ma yaxtamil mukhalafa aw ta'kiidu yani shay baad hubsanaysaa adkaynaysaa ay dhici karto ruuxu inuu ballanti ka baxo ama uu khilaafo bidikri ismin min asmaa'i illaahi aw sifatin min sifaatihi subxaanahu wa tacala baad ku xaqiijinaysaa bisifatin maqsuusa. ayib, kitaabu alaymaan sheekh wuxuu ku sheegay nuduur toddoba xadiid buu ku sheegay. can cabdiraxmaan bni samura radia allahu tacaala canhu qaal عبد الرحمن بن سمرة أبو سعيد القرشي العبشمي يوم الفتح فتح مكة إسلامي إلى أفرت من حديث بالغوريا. هل كان حديث هذا ينقرن بيسكو وافق بخاري مسلم وحل انفراد لبا حديث البخاري وحل انفراد مجرى. قال وحول الصحابي قال رسول الله رسول كلاه بوحيري يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة إمارة عندها ويديسني تلو هي مسؤولية هي حل دمانمو هرادين هذا البلو كان بين قرين يا ولا تشرحها يا هولها صوبحين بالي يعني واحد مسؤولية يحلها قبن. لا تسألها ويديسن الإمارة إمارة واسمد ومامل هي مسؤولية يحل هرادين بالي فإنك أضو إن أعطيتها دي إمارة الوصية اللي ديبه وحل ديبه can mas'alatin su-aal xaggeed adoo weydiistay oo doonay oo raadiyey baa lagugu soo wareejiyey. kharashkii kambeyn baa lagu bixiyaa, malaayiin baa lagu bixiya oo lasku laayahay. nabi maxamed wuxuu leeyahay haddii adoon raadsanin lagula soo doonto wukilta ilayhaa adoo raadiye haddaad hesho wukilta ilaahaydaa lagu tala saaranaya. adoo doonay oo kharash ku bixiyey ama su-aashay haddii aad imaarasaa ku hesho ayadaa lagu tala saara, yani waa lagaaga wareegi wey, lagugu kaalmayn maayo. xilkeedii iyo mas-uuliyaddeedii iyo hawsheedii dhib bayba kugu noqon, ilaahay kugu kaalmayn maayo. maxaa yeelay tala iyo maamul lamaba raadiyaba, lama doondoono. wa in ucطiita haddii lagu siiyo can hayri mas'ala su'aal la'aan adoo isku jiro sheekhow wax ku dhaaba ma hayne bal hawshan noo qabo niyow bal xilkan qabo muslimiinta maamul waa lagula soo doontay gurigaad adoo jooga maadan raadin markaa iyada ah ucinta calayha waa lagugu kaalmayn, garab baa lagugu noqon, allah kugu kaalmayn subxaanahu wa tacaala, muslimiintaa kugu kaalmayn, allah kugu ceeb asturi. laakiin markaad raadiso iyo su'aal lagugu siiye iyo doonitaan iyo kharash lagugu siiye oo lagugu ceebay waana waxa taagan waa hadda wey. maxaa yeelay alqudaatu halaath rajulun fi ljanna waithnaani fi nnaar. dadka qudaada ee maamule ee muslimiinta hogaamiya, qaadigu hadda waxaa weeyaan kii uun qaadiga basaayay ee xukumhayay howlaha meherka iyo axwaala shakhsiya iyo basa ma ah, inkastoo xaakimaa qaadi la odhanayaa fi shariica marka la maray. marka dadka waxa maamulaya waa saddex, hal ninna waa jannagaal, labana waa naargalayaal. ayib, nabi kale waxaa ka sugan man waliya alqadaa faqad dubixa bigayri sikiin. ninkii tala qabta ama qaadi laga dhigo waxaa la gowracay sikiin la'aan, midda la'aan baa la gowracay wey. falliiq iyo dhagax sifaatihi iyo waxbaa lagu gowracay wey, si silca loo dilay ruuxa asaga. ilan gowricu islaamaha haddii lagu torreeyey oo bilaabo lagu maray werix lagugu siiye waaba roon tahay. axmed iyo abu daawud iyo ibn maaja soo saara waa xadiid xasana. inakum sataxrisuuna cala alimaara wa inaha satakunu nadaama yowma alqiyaama fanicmat almurdica wa bi'sat alfaatima buu nabigu odhan jiray salawatu llahi wasalam aleyh. muslimiinay dadku waxay ku dadaali doonaan talada iyo maamulka iyo mas-uuliyadda iyo xildhibaanada la raadin doonaa. maalinka qiyaamana shallayto iyo nadaamay noqon doonta, qoomamayn baa ka dambayn. adduunku waa la raday waa macaan tahay, waa lagu baaba'aa, laakiin qiyaamo waa shallayto iyo qoomamay balaa'iyo hoog wey. wa idaa xalafta cabdiraxmaan haddaad ku dhaarato calaa yamiinin, dhaar baad dhaaratay inaad taa isaa samaynayso ama aadan samaynayn, oo fa ra'ayta aad aragto hayraha dhaartii waxaan ka ahayn oo khayran minha idaa ka khayr badan. maxaa tiri hebel ilah waa in badan bay u xumeeyo dhib ii geystay, dib dambe inaanan salaamaynin baa alla igu ogtaa tiri. haddana waa iswan subxaanat war ninku waa nin walaalkaa waa la khaldamaa ma khaldama waa ilaahay
bal ninka iska salaano saaxiibada haydan hawsha ka noqo inaad hawsha ka noqotaa ka khayr badan inaad dhaartaadii ku sii taagnaato lanna waa dhaar xaarana wey waidaa xalafta calaa yamiinin dhaaradaad ku dhaarato oo fara'ayta aragta hayraha hayrkeed khayran uu ka wanaagsan yahay minha dhaartii uu ka wanaagsan yahay nin baad waanisay hadalkaa qadan way dib dambe ilahay baa wax ku sheegna baad tiri shalay baan ku waani waa iga diiday daraad waa iga diiday maalin hore sanad hore dib dambe haddaan kula hadlo anaaba kaa xun baa tiri iska dhaqaaq cabaar markaad joogtay baa tiri war waa sidee amar macruuf lama dayn karee ninku walaalka xaqo kugu leeyahay bal wixii ka noqo shaydaan baa ku hartay dhaarta ka noqo hadday saa tahay soo ma aha fakafir ka kafaaro gudo can yamiinika dhaartaadii wa'ti la imow alladii midka huwa asaguba khayrun wanaagsan khayrka la imow oo dhaarta ka noqo waama dhaartay in lama rabo dhaartu wax meel ku xidhan ma ee khayr doon baad ahayd sida khayrka ayeel dhaartina ka kafaaro gudo 10 miskiin quuda ama arad bixi ama adoon xori haddaad weydana 3 berisoon dhibka jira muxuu yahay ka noqo wixii sheekh boqolsoon raxmatullahi calayh yaa aanu ma joogin sida laga sheegay masaajidka sigiska duqay soomaaliya oo fara badan oo joogi jirtay hadda waa la hagaagay sida xaalku ma aha dagaad soo qaxdeen waliba cusbaydeen dhibka badnaydeen hadda kenya la qabsateene waagii baa dhowr kor masaajidkii istaagay baa lagu dhibay lagu rafaadiyey rag badan oo shuuciyada ka soo hadhay waaweyn yaa aad u dhibay wadaadka kaasuu ku dhaartay dib dambe inuu masaajidka istaagayn markuu muddo dhowr bee maqnaa isbuuc yuu soo istaagay maxaadur la istaag dhaartii waan ka kafaaro kutib waan taaganahay iska dhiciya waan ka noqday buuri marka waa saas sheekh wixii khayr ah dhaar yani ma soconayso waati laima alladii huwa khayru midka khayr badan riwaayo kale faati alladii huwa khayr wakafir can yamiinika wabukhaari riwaayo kale fakafir can yamiinika uma ati alladii huwa khayr cinda sunan ah yacni xataa markaad dhaaratay adoon dhaartii jabinin baad kafaaro gudan kartaa intaad kafaaro gudato kadib baad dhaarta jabin kartaa haddii kale adoo dhaarta jabiyey oo hawsha sameeyey baad kafaarada bixinaysaa kafaarada wayna horrayn kartaa wayna dambayn kartaa weliba waxaa loo badan yahay cinda salaf inay kafaarada horrayso baa loo badan yahay labadu waa bannaan yihi وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا والله إبان كل أرتي إن شاء الله والله دو يداب لا أحلف نبي محد باله نبقى وحوليه والله إبان كل إن شاء الله وتبرق وي إلى دو يداب يعني والله قال مجد إله مشاهد سبحانه وتعالى وحبضان بالقحرة إلى ذو تلال مليدي لا أحلف دارا ما إلى دو يداب على يمين دار مرم هاي فأرى أرك ما يبور غيرها غير كيد خيرا منها إلا أتيت وحن الله ما الذي هو خير وتحللتها نبي أقول بقى أنا قوان كي قاعدة وحاول هذا النبي محمد أهي وإله دار أقول مرهايا هدي أنا دارت بني آدم أنا هاي ونسكو دارت ودارت إيتاجن أنا أركو دارت وحكا في عم دارت بان كفار جدا خير كان لا إيمان هي وفأرى أنا أرك غيرها غير الحلف أما يمينتي غير كذا خيرا كون أكثر منها دارت يدي إلا هدي تادع وما أتيت وحن لا إيمان الذي شيء هو أصوب خير ونكسن وتحللتها أيضنا وأن كحلالوبي وأن كفار جدنوي وحي الصواب بحديث كالهاي من أشعريين وفربضا يا غزوة التبوك بين النبي ويمد صلوات الله وسلم عليه حين محمد وقادت نسيا أن كدول جيش العسرة نبي حوري إلهي بان كل دارتي قادتنا ما هيو واحد قادتنا كحبارنا ما هيو ورضي درربو والله بان كل دارتي قادتنا نسين ما هيبو النبي صلى الله عليه وسلم محايلة ما بهيضا nabigu saacado kadib yuu tegey sacad wuxuu ka soo iibsaday hala 9 mise 6 ah buu deyn kaga soo iibsaday halihii buu marka saxaabada u yeedhay nimankii wuxuu dhahay gaadidka doonay awaya waa la raadiyay la doondoonay waa la soo ururiyay wuxuu geelan qaata gaadidka dhigta duulaanka raac saxaabada marka wadaay dhaarta nabi maxamed ogaa ee ashcariinta geelan la siiyey ee gaadidka la siiyey waxay moodeen nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu dhaarkiisa iloobay كعبار سعودي وحالي النبي محمد هذا وكي دارتي هذا أنا قاعد بنسيه نبي إن دنباتشني تنديب أقول نقولنا قاعد كيسانو علن هوش أنا أقول شيء نبي قايل له بي نبي صلى الله عليه محمد هذا ودارتي هذا أنا قاعد بنسيسي هذا إن أنا كنت دنباتشني دون ما قاعد كذا هو حولي وان دارتي وارنتين لكن دارتي وان كفار يقولون ياي جيني نوط هوش وأوجه هاي مركز نبي نسيره إني والله إن شاء الله ولا أحلف على يمين ساسا كتب هذان دارته أو دارته وحكا خير بان أنا أركو دارته وكنقص ويعرس وي دارته هقبت خير كان هذا هي روح مسلم محبوط تاقين يا شيخ خير كان
ما يدار بان كم مري سوماليدو إنه كحمي الربا دارتو كوكبنا يا موقته ما يكنيبل وابن كدار تيبا دار بان كم مري دار بان كم مرت محيط طبعا مسكين بالمال هوتيل جيني ساي أما أرد بحين يربط زيني ساي شهر بقول شيء لا كوفيلا هدي أبا كوفيلا أي سنكاين هالمرة وقدا كوفيلا 4 كيلو بريس أبا كوفيلا طبعا كوروبا هالمرة للدرجية 2 كيلو هيلبا أي سنكاين هذا أنت كوبا خيلي يسود ير حقوق ضعتاي صدح مع الوضع كسر أنت هذا حدوني سنة إسلامي ما باب يسود كوكبة دونيس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي ينهاكم وحيدين كريبا يا مسلمين أن تحلفوا إن كدارتان بآبائكم أبيالكم أباه تنوايا وتنهويدي وايا وكان قارئ حرضي حلاهي الدلاقا سمع تغني وحاسي يقنا لو باه إلهي سبحانه وتعالى قدارنيه إن الله ينهاكم إلهي وحيدين كريبا يا أن تحلفوا إن كدارتان بآبائكم أبيالكم محايا لي وحاكسوا في السنن وأحمد من حلف بغير الله فقد أشرك إلهي غيرك روحي كدارتاي شركي وكدار بل علماء وحيلين شركة هو شركة أكبر ومخرج عن الملة جمهورته وحيلين ما هو شركة أصغر وي هذا تعظيم أو كفر قارسية أو مش كتير المهم هو شركة لقى في قدر أيضا ولمسلم مسلم وحوسا فمن كان حالفا نك دارني جاي فليحلف بالله إلهي كدارته أو ليصمت أما سكامس ورما يبي الله كداره سبحانه وتعالى الله كداره سبحانه وتعالى أما فرح كقط وهذا كذا الشيء سايساس وي هدي لو داريو اما الظروف اي كو كنتنا دارته اما ادل ku xoojinaysa ilaahay ku dhaar subhanahu wa ta'ala laakiin qoor iyo xirada iyo xilay dalaaqan iyo watan abahay waaye iyo wata ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo wata carufayda la murduga wata nabad ku bir awlaha lama rabo xas ku habaari ayay ilaahay ismiisa ku dhaaro ama faraha ka qaad waagada masi baashi dhaarta loo waday waxay Soomaaliya la gaadhay xilli ay xilay dalaaqan iyo دارت ربي سبحانه وتعالى حلاك هذا إلى أنك يا موسى بدين عيسى بدين كفر ويتاس قال لي موي موسى عيسى اسكو دين بأهاي اسكو توحيد بلين من أبينا آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء اسكو دين بأهاي دين الإسلام بيكون السعودين اسكو توحيد بأهاي لكن أحكام فروع شرعية وعملية بقول دوانية ومركز ظروف تجرتي واقعي أي كنيس أما دين تقود أهان وكسناي مركز هذا ترى موسى بدين عيسى بدين لبدين يخلص عطاء مجران إن الدين عند الله الإسلام إسلام خاصة إسلام مطلقة دون كلها إسلام ككل مطلقة أنبياء ورنبا ولكت مثل خاص كان وكان أحكام الشرع الإسلام أول مركز يعني ماذا اسم الويت قنا وما حن على سكيل علي موسى بدين عيسى بدين هل كان دقاقوي هوجر تمام على سكيل علي طيب رواية فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواية أيضا ليست من حديث عمر شيخ حنقدق يا حديث عمر لكن ليست من حديث عمر وإنما هي من حديث ابنه عبد الله بن عمر حديث كسوي صادرت رواية معها من أفراد مسلمة بخاري مسلم بورن هيان إلى شيخ حكر ولمسلم مسلم كلي وحليه معه كلي ملا رواية ضمب مسلم بخاري بواليهن ومن حديث ابن عمر لفظيا معها من حديث عمر ويلكس عبد الله بورني والفانتم بيلاتين أيضا وفي رواية لو حاكسوا قال عمر وحجري فوالله إلهي بان قدرتي مكو النبي كما قال لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم مكو النبي كما قال فوالله بان قدرتي ما حلفتكم دار ننبر بها دارت أيضا وآبها تنوايائي وآبها طيب منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انت لما قال رسولك ينهى أمدك الربي عنها عن الحلف بالآباء نبي محمد انت كم قال رسولك أمدك الربي إن والدين لغو دارته أما والله لغو دارته أما قرار لغو دارته أما رحمك لغو دارته وتن أرحن يقرب وياه بكله تقولوا معاد وتن أرحن يقرب وياه أرحن لا يكون ويدما ذلك أما ويدمانها يعني إلهي كدار سبحانه وتعالى طيب ولقي كما دارن بوري ذاكرا أنا حسوسا أو سو أنا حسوسا هاي ولا آثر أنا سو قرن هاي بوري
weligii kuma dhaaranin buuhi aabba iyo wixii lamida ilaa markaan ka maqlay laga bilaabo nabi maxamed ummadda ka reebay daakiran anoo xusuusan oo u qastay inaan ku dhaarto aw aasiran can hayri aw naaqilan can hayri xataa ma dhihin buuhi hebel baasaa aabba ugu dhaartay anoo canjilahaya ama jilahaya ama matalahayana kuma dhaaranin buuhi anoo aniga xusuusanna shaksiyan aniguna kuma dhaaranin cid kalena kama soo guurinin buuhi riwaaya muslim waxay walaa takalamtu biha yani walaa aasiran walaa takalamtu biha mana soo guurinin kumana hadlin kumana dhaaran yani wuxuu jeeda yani xaakiyan can hayri aasiran buu fasirhayaa xaakiyan ka soo guurinhaya oo ka matalhaya can hayri hayrkay maxaan ka matalhayaa annahu asagu xalafa inuu ku dhaartay bihaa dhaarti ahayd aabbaha in lagu dhaarta ah waxaa lamid ah oo nabigu ummadda ka reebay in ammaana lagu dhaarto man xalafa biاlamaanati falaysa mina man xalafa biاlamaana falaysa mina ammaanadu hadda waxaa wey qoor iyo xeradeed oo kale wey yani yaman baan ku arkay yani nimankaas markaad aragto dhaarta ugu adag waxa wey alamaan ammaano ku leeyahay saaysa mise amaana so kii kale wuxuu leey amaane amaana war amaana u kaadi oo dhaaro ma jirto xilay dalaaqan oo kale bay u tahay iyaga yani inuu ilaahay kugu dhaarto iyo qasaman billaah inuu kugu dhaarto waxa uu ka jecel yahay lagagana kalsoon yahay cinda shacab inuu ku dhaarto alamaana oo kale amaana wey taas ayada bil amaana ku leeyahay marka nabigu ummadda waa ka reebay waa xaaraan ardaa axmed iyo abu daawud iyo hayr waa soo saaray marka ammaane iyo xilhay iyo xoogay iyo waxaasoo dhan lama ogolo wax jira ma waa shirkiyaad bannaanka laga maro وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري قال سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام سليمان ابن داود النبي الرسول أها أيا وحوري لأطوفن وحان عاوة كوري ونوق المن الليلة عاوة على 70 امرأة تضبات ضمرة 70 باني يقرن أيوة على 70 امرأة تضبات ضمرة نوق المنية رواية مسلم وحيث الممسى إنه لها وكان له 60 امرأة لحدا ضمرة رواية كلي 90 امرأة رواية بخاري في النكاح 100 امرأة رواية كلي وحيث الممسى 99 على 99 امرأة سقاشن يستقال بقول لحدا تضباطا انتوا رواية جروي طيب رواية مركب بقول كأه أيها معتمدة معايا لي عدد كير مديدة يا عدد كبضن لكن عدد كبضن وديدة هي عدد كير صدر رواية بضن بقول كأه أيها معتمدة بقول دمر أهاي بقول دمر أهاي أما سقاشن يستقال بأهاينو انت النايد كسري بالبوحية كسرية أيها لبش سلاشين سقال دمرة أما بقول دمرة مثل هو مفهوم اللقب معتمد ما عند الجمهور سكة سبنا قلت وحول النبي قاس عاو حنكو إيه ونصمرها يا تضبات دمرة أما بقول دمرة أما سقاشن دمرة أما سقاشن سقال دمرة تلد وحيدالي برود النبي قاس كل امرأة هويني كستا ومنهن بقولك كمذا غلام ويل بدلي يقاتل كل القام كدر علما في سبيل الله إلى تركيس وجه هذا ينبر معها geelay raaci doonaan iyo garab bay noqon doonaan iyo majaalista iyo suduur majaalis baan ku fadhiisan doonaa iyo waa ku faantami doonaa iyo howlaha ma ah wuxuu raba dhammaantood inay shahiidaan sabab kora tagaan buu raba faqiila lahu waxaa lagu yidhi nabigii qul waxaa tirahdaa in sha allah 9 baan caawa isku mari uur bay wada qaadi 100 wiil oo fardafuulay oo dhalhayaanoo jahaada in sha allah nabiga u raaci baa leeyahay malag baa ku yidhi malag markaa la joogay يقول إن شاء الله وإلو مكة وابن آدم فلم يقل مره النبي وأرنتي فضاف وإلو فضاف بهن ضمرك بابين كوري وسمري فلم تلد ما يسنضل منهن إلا امرأة واحدة ضمرك السقاشا كما بقولك هل هويني بهابينك أورك قد هل هويني بأورك قد ما حيدا شيء نصف إنسان بدش روحا رمسته ولي ببرد حاف روح عريان وعلان بيدش يعني إياك نعبد وإياك نستعين بالرب استعانة بالله والرب إلى هذا إن شاء الله إلى أودي تكون حرمتها فلم تلد ميسر منهن ضمرك حقه إلا امرأة واحدة نصف إنسان نسكي بدش بركي روايك له شق غلام ويل شيخ بدش روايك له بشق رجل انت واسوق انت
riwaayaka falam yaxmil shayئan ila waaxidan saaqiطan ixdaa shiqihi labada garab dhinac mid ka mida ayaa maqnaaba ayib waa nabigaa la imtixaan haya la tushayaa inuu khalad galay inuu obsayd gala la tushayaa meelaan loo baahnayn inuu galay qaala wuxuu yihi faqaala rasul lah rasulka ilah ummadda oga sheekayn ila hawsha inagu ma ogini nebi maxamed oo haybka looga warramay baa soo gurinhaya nabi sulayman waa xaggee faqaala rasul lah wuxuu yihi low qaala hadduu odhan lahaa nabi sulaymaan in shaa allaahu ilah hadduu yidhah hadduu odhan lahaa lam yaxnas dhaartu kama jabteen dhaarti ma jabteenoo 100 wiil baa dhalan lahaa wey 90 wiil intay dhashaan bay fardafuul noqon lahaayeen fardooley ah wa kaana wuxuu noqon lahaa mashii'adaas ama in sha allah waxay noqon lahayd darakan haleel bay u noqon lahayd lixaajatii dantiisa ku gaadho darakan laa takhaafu darakan walaa takhsha yani darag waa ilxaaq wey yani hawshiisii buu ku gaadhi lahaa wey oo jeedadu ahaa oo 100 wiil inay u dhashaan ah oo uu ku jihaadano halgamaan ah uu heli lahaa wey ee ilahay mashii'adiisii buu ka tegey walaa taquulanna lishayin inii faacilu dalika hadan ilaa ya sha allah tii wey riwaaya bukhaari wa kaana arjaa lixaajatihi bay leedahay ambiyada culamadu waxay sheegaan waxaa la siiyey quwo xagga galmada iyo raganimadka quwa laga siiyey leanno maxaa yeelay raganimo yaridu waa ceeb wey nabigu waxaa la doonaya uu noqdo waxa la rabaa xagga sharafta iyo darajada fi lqima uu gaadho saa darteed ambiyada ilaahay waxay ahaayeen xagga nimanka ugu sarreeya ahayn saa darteed nabi maxamed 40 rajulan awoodood buu lahaa 11 dumarkuu qabo hal mar isku mari jiray wax culaysa kuma hayn asagoo sooman oo baahan baranbaradaas ka saaraatay waraaga qaad ayib asagoo sooman oo hadda soonka wisaalin jiray oo baahan oo faqiir ah waxba aan haysanin oo gaajo ku bariyo oo ku soo toosa haddana xagga awoodiisa waa maa sha allahu kaan baxi ayib waxay kaloo culamadu sheegaan shay adduunyada ka midoo haddii la badsado aan qalbiga ingejinaynin galmada ka jirta adduunyada inteeda kale shahawaadkeeda kale haddaad badsato qosolka haddaad badsato haddaad raashinka badsato hurdada haddaad badsato wax kastoo adduunyaha haddaad badsato qalbi ingeg baa laga qaadaa laakiin galmada jimaaca waxaa laga qaadaaba qalbi wanaag saa darteed ba ambiyadu awoodda ay rabbi subxana wa tacala u siiyey culamadu saasay caddeeyaan raxmatullah alayh qowluhu uu yidhi buu sheekhu kullu qiila lahu waxaa lagu yidhi nabigu qul waxaa tiraa in shaa allahu dheh yacni wuxuu u jeedaa qaala lahu lmalak malag baa wuxuu ku yidhi qul in shaa allah malagga la joogay riwaaya bukhaari baa caddaysayba faqaala lahu lmalak qul in shaa allah falam yaqul wanasiya riwaaya bukhari waa caddaysay 5242 raqamka xadiidkaas ayuu ku caddeeyey bukhaari waxaa laga qaadan karaa xadiidka laga qaadan karaa in laga qaadanayaa in wixii markaad arrin maagan tahay mustaqbal ah oo soo socoto fuyujar oo aayatiin dambe ah oo marka aadan haynin in sha allah ku xidh khayr iyo adduun iyo mid aakharaba waxaa kaloo laga qaadan karaa low in la odhan karo low wixii arrin diimeed ah diin ku dhaaftay ama arrin diimeed ood ka laxawsanayso wixii lamid a dhigarta low aad odhan karto nabi wuxuu uhi low qaala in sha allah lam yaxnas ayib low ana lii bikum quwa أو آوي إلى ركن شديد نبي لوط لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه هوين إذا لتمت وصفق حماء علمه قرعها كلتمت نبي وحورها دان روح رجمنها بغير بينة أنا رجم لها لو مد لي الشهر لواصلت نبي صحابه وحوري وصالك اسكداي ما كان مالك سومتان اسك أفرا من يحدوا وصالي ساي ورانا يدينكو كلمية كداي مالك بو نبي وايا وصالنا داود اسكو قبت bishi baa durba dhammaatay nabi wuxuu bishi haddaysan dhammaan lahayn oo ramadaan uu 20 maanta noqon lahaa 10 beer intaan wasaaliyay baad jabi lahayd oo tamar lahaydba waad ilin garan waayay wuxuu low mudda liya shahr la waasaltu marka low nabiga sallallahu alayhi wasallam lawla alhijratu lakuntu imra'an min al-ansar aisha muxuu lawla anna qawmika hadithu ahdin bi jahiliyatin la banaytu al-ka'bah halkeeda baan ku celinaha yani low marka fa inna law tahd wa iyyaka fala taqul law فإن لو تفتح عمل الشيطان ووحي أرين الدنيا كل أفتح مكات كلا حوصنيسو هوشاس ممنوع وي لكن خير يا دين يا آخر مكة تاي لو وبنانت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
qaala rasuulu llahi sal ly slam man xalafa ninkii ku dhaarta calaa yamiini sabrin yamiin sabrin wax xabisaysaa leeyihi dhaar wax xabisaysa yacni waa dhaar ruuxa naar ku xabisaysa wey waa dhaar ruuxa dembiga ku xabisaysa faajirnimo ku xabisaysa man xalafa ninkii ku dhaarta calaa yamiini sabrin yamiin oo asagu laazimhayo way sabrin wax laazimaysa ama xabisa ama xaq bay xabisi oo ruux xaqiisii bay soo goyn ama aday naar kugu xabisi ama dembi weyn bay ku gelin waa dhaar culus wey ama waa dhaar adig ku laazimayso min xaysu alxukm ku laazimaysa dhaartaasoo yaqtadic uu ku goosanaya biha ayada maala mri'in muslimin ruux maalkiibuu ku cunhayaa yani waa dhaar been ah oon xaq ahayn oo xoolo islaameed uu ku dhacahayo wey anaa uga marakacay wey makhaati iyo balaayo dharan huwa asagu fiiha dhaarta ayada ah faajirun uu faajir ku yahay oo dharoo been ku sheegaya alyamiin alkhamuus ta loo yaqaano wey yamiin sabr yamiin alkhamuus baa intaba la yidhahdaa laqiya wuu la kulmahayaa allahi ebuu la kulmi walxaal huwa calayhi khadbaan maalinka qiyaama allah kuu cadhaysamad ka hortegi ninka dhaarta been ah oo xaq bini aadam ku goosta muslimiin xaqooda ku goosta markuu dhinto qiyaamo ilaahay subxaana wa tacala u xanaaqsan oo u cadhaysan yuu ka hortegahaya ya ruux kasta ama dhar ha iibiyo ama kitaab ha iibiyo ama coomad ha gab dhaar kastoo beena wey ood xaq bini aadam iyo islaam ku dhacayso laqiya allaha ilahay buu la kulmaa maalinka qiyaama walxaal huwa ilaahay subxaana wa tacaala calayhi cala alxaalifi khadbaan uu cadhaysan yahay wanazlad waxaa soo degtay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim hamanan qaliila kuwa ku iibsanhaya bicahdi illahi ilaahay ballamihiisii iyo wa aymaanihim dhaarahoodii hamanan qaliilan adduunyo yar ku iibsaday adduunyo dhaarsaday nacfigaa yarkuu dhaar been ah ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi alaakhira ila aakhiri alaaya suuradda ali cimraan soo mahayn halkaa loogu laabto marka lama ogola dhaaraha la iska ilaaliyo wa can ashcad ibni qaysin ashcad ibnu qays alkindi sanadka tobnaad buu nebi maxamed u yimid isagoo nin ogaasoo boqora ama garaad ah wafdigii reer kinda ee sanadka tobnaad nabigu u yimid buu ku jiray 60 raakib ayagoo ah 60 faris bay u yimaadeen reer qoyskaas markaasuu asagu islaamay ilaa isaga ugaas ahaa 60 kalena waa raaceen alla islaamay dayib nin aad fiican buu ahaa dagaalkii yarmuug buu ka qayb galay laakiin ayaamu ridda ayuu ridoobay ayaamu xuruub ridda markuu nabigu dhintay raggu abubakar la dagaalamay buu ka mid ahaa waa ridoobay kadibna wuu soo laabtay uu toobad keenay hawshuu ka soo laabtay markuu ayaamu ridda intuu gaaloobay uu soo laabtay yaa sayidina abubakar walaashii umu farwa loo yaqaanay gabar qiimo ayuu u meheriyey gabadhaas way balguurso niyo waa ku sida boqor baad ahayd ugaas dhan baad ahayd nabi maxamed baa adoo adiyo 60 kula socdaan islaanteen waa sidee li'anno raggii ku cusbaa islaamnimadoo dhan qaybo ka mid a waliba remi u badnaa markuu nabigu geeriyooday argixii dhannaayo dhacay bay dad badan ka mida ku gaaloobeen dib u noqdeen laakiin dadka islaamku u dhadhamay ee nabiga soo gaaray in badan la caashiray ee islaamku u macaansaday hadday wax kasta dhacaan kulli haddii la gaaloomaysa gaaloobeen yani ruux marka intuu islaamka la qabsanhayo ee uu fahmayo ee shareecada u macaanaysa waa in loo tartiibiyo waa dhexdeeda waxaa dhacday qolyo soo islaamayo oo jaloomi ahayn mise mukaan bay ahayd waxay dhaheen niman waan islaamaynaye gudniinka nalaga daayo gudniinku waa xanuun kulul yahay nalaga daayo bahalkaas maxay maya waa in lagu daahiriyo qasab weeye haddaan lagaa goynin waxaa ma soconhay xer ba heshay bas wuxuu anuu islaamka geli maayo marba haddii laka goynayo islaamka geli maayo midna markii laga gooyey kadib oo u xanuunsaday dib u noqday meelahan kasuumiya ka dhacday mise waxay ahayd buusiya meelahan ka dhacday baa dhowd baa laga sheegay mushkilo wey nabi maxamed nin ba wuxuu nabi maxamed anugu waan islaami laakiin bishart 2 salaad bisan tukan ba anugu salaadu way badan tahay anugu 2 salaad bisan tukan haya nabi islaamku ka aqbalay sababta tawxiidka goori soo islaam waa yahay balabadana tuko markuu labadii dhow bir tukan hay inta kale u macaanaatay ku daray nin waxa nabi maxamed anagu reer qibadana waan islaamayna laakiin jihaadku lagu dhamaaday jihaad mayno badal tagi mayno ko zakana bixin mayno way horta islaamka soo gala way soo galeen waagi dambe jihaadka ayaga u horeysay kor ka dagaalami jireen sadaqana way bixin jireen xidma loo baahan yahay nin dhanba hadda way uga cayseen gudniin iyo balaga laga goynaya oo la isku haysto sunna mise waa waajib tayib
yani waxaa loo baahan yahay in hawsha la dejiyo waagi dambe saxaabigaas wuu yaqaana dhibku galayo jariir ibn cabdillah albajali asagaa maalin meel iskugu yimid janaaza loo keena kaas le ku tuko wuxuu jariir adina tuji maxaa yeele anigu mar baan ridoobay buuri adaan weligaa ridoobine na tuji adaa imaam noo noqonahay marnaba ka hor istaagi maaye in aad u khayr badan ba khayr laasi adigu sagaal xadiid ayuu wariyaa waagi dambe qaadisiye iyo nahaawandi iyo fatxu lmadaa'in iyo jalowlaa iyo meelo badan mu ka qayb gal mi culus bu aha ee khaladkaa yar baa ka dhacay uuna ka toobad keenay sagaal xadiid buu wariyaa halkan xadiid haddaan hayno bay bukhaari muslim isku waafaqaan qaala wuxuu uhi saxaabigaas kaana baynii wa bayna rajulin aniga nin kale waxaa noo dhexeeyey kaana baynii aniga iyo baynkayga iyo wa bayna rajul nin kale waxaa ahaa bui khusumada dood aniga nin kalaa gar isku qabannay waa maxay khusumada dood fii bi'ri ceel baan isku haynay ceel baan ku doodnay faاkhtasamnaa waxaan ku gartannay oon ku doodnay ilaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi faqaala rasuulu ullah rasuulka ilaahi wuxuu yii buu ihi shaahidaaka labada makhraati ashcat ibnu qaysow haddii adigu muddaci baa tahay asagiina waa muddaca calayhi laba makhraati baa lagaa raba soo soco laba makhraati soo soco shaahidaaka haati shaahidaaka labada makhraatida layd keenso keen aw yamiinu ama buu kuu dhaaran ama dhaar buu kuu mari inuu adan waxaan lahayn oo kitaab jaamicu kuu marhaya ama makhraati baad keensanaysa qultu waxaa nabi maxamedow idan yaxlifu waa dhaaranaya ninku walaa yubaali dana kama lah ninku waa nin faajir ah nin dhib badan weeye xadarin inu amaan filaya marka wuxuu ninka nabi maxamed intuu dhaas iyo xoolii la tegi aniguna bayana ma hayo haddaadan makhraati haynin hadda wuu kuu dhaaran laysa laka ila dalika riwaaya kala cadays waxaan intaa hay ma lihid imaa inaad makhraati keensato haddaad weydo inuu kuu dhaarto saaxiliisi ku qaato hadday rabbi kugu ogyahay xoolahaada yihiin iska samir aakhirad helaysaa ama haddii kale makhraati keenso faqaala rasuulu lahi sal sl rsulka ilah wuxuu yidhi iyadoo sidaa tahay haddana ninka waa la waayn runtaa loo sheegi man xalafa calaa yamiinin dhaar ninka ku dhaartaa layidhi man xalafa ninka dhaarta calaa yamiin dhaar ninka ku mara yemiintaasoo sabrin xaabisaysa ama xidhaysa oo ganaaxaysa ninkeeda dembiga ku ganaaxaysa ama naar ku ganaaxaysa ama xaq goynaysa waajibinaysa dhaartaasoo yaqtadicu ku goosanaya bihaa dhaarta maalamada muslimin ruux muslima maalkii uu ku dhacahayo huwa asagu fiiha dhaarta gudaheeda uu yahay faajirun been uu ku sheegayo laqiya allaha caza wajal wahuwa calayhi khadbaan maalinka qiyaamo alla u cadhaysan buu ka hortegi doonaa markuu ilahay u caroodana naar buu tegi inuu ku waarna waa suurtagal wey ayb wa can haabit ibn الضaxaak alansaari radia allahu tacaala canh annahu saxaabigaas baayaca rasuula allah rasuulka ilahi buu la ballamay uu gacan geliyey bayca la galay taxta ashajara geedka hoostiis alxudaybiya maalinkeeda wey baycat ridwaan wa ana rasuulka ilaahi qaala wuxuu yidhi man xalafa saxaabigaas maxaa laguu sheegahayaa nin culus inuu yahay waa haabit ibnu daxaak alansaari inuu yahay raggii baycat ridwaan ka qayb galay dhammaantood ahlu janno wey hal nin oo naar ag maraya kuma jiro xataa waa la dhex maray abadan dhammaan ahlu janno wey 1400 1500 bay ahayd 1500 ama 1600 ama 1400 dhammaan ahlu janno wey ahlu badr dhammaan ahlu janno wey rag caadi ama saabiquun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar ahlu janno wey marka rag soo shaqaystay way adoo hadda soo ruclay baad faraha tagtaagaysa laga yeeli maayo annahu saxaabigaas baayaca wuxuu la ballamay rasuulullah sallallahu alayhi wasallam taxta ashajara geedka hoostiis geedkii sayidina cumar baa gooyey lianna wuxuu ka baqay aakhirka dambe cumar moogta nin aad u caqli badan oo xakiim ah ayuu ahaa xaggana mulham ah ayuu ahaa geedka hadduu hadda taagnaan lahaa nimanka bannaanka cidlada caabudahaya ma ka warran maxay samayn lahay ninkii ciidihii uweys iyo sheekh cabdiqaadir urursanhaya abaadir ka soo qadanhaya harra ilaa soconhaya ee ulaha faraqeelha watay islaamka rogay hadday geedkii saxaabadu isku dhahday nebi maxamed baycadu ku galay ee ilaahay ku soo dejiyey qur-aanka ay heli lahaayeen horey ka caabudi lahay geedkii waa la gooyey ilaa yoomina haadaa xataa saxaabadii waagaa joogta way garan waaya meshu geedku ahaa saxaabo danba la weydiye oo raggii joogay kamid aha geedka maalinkii ku hoos dhaartay wayba garan waaya meesha ahayd anaa kutusayna kee waaba la garan waayaba saa darteed saxaabada 95% qubuurtooda lama yaqaano saxaabada nebi maxamed 99% maama dhaho qubuurtooda lama yaqaanaba waa xikma iyo raxma min allah subxana wa tacala wey
وبل عبيله سيد علي بن أمي كان شيعة ما تقان ملك حبالية حتى حسين بن لقون ملك حبالية عراق يكون ملك حقيوي لم يقن وحي أنبياء ضماتي بقول إلى باتني أفر كن أو النبي إلى سودر سبحانه وتعالى من قبل سلا يقنا كم جيران موسى والنبي محوت المامي يا نبي جنمو وما يري هيبه رأي ما حكوا النبي هود بمشي نقول أصلا بورد بكتوس هيان قبل راس النبي هود ويمتكن ويعقوب رأي حكوا النبي من النبي هود حكوا أصلا يعني مش قبر كذا ولكن وريست مركوا حكمة وإله سبحانه ذلك الصلاة صحابة ودان ينبيه ولا قريب قبرته لسان لقوا فسادين اللي ودي الاستاج وأن رسول كإلهي قال وحور من حلف على يمين نيك دار كدارت بملة دين كدارت غير الإسلام عن أهين وأنت يهودي النقضابة ترينا واحد سمين يهودي باقي سعادة الله قبل الله كدونيسا كفرت بالله وأن كفر قد لهين كافر باطل إذا بدرام حيته وردين إسلام بإله كسي إلهي قدر سبحانه وتعالى سفر أيضا كأهين إسكن نقلين من فرح قد أرتبه إسكن عرضاتهم أو رفم وين بل دارت فرح قد هذا ديده إلهي قدر سبحانه وتعالى وأنشحمه إذا بدروا وقرص الرب سبحانه وتعالى دين الإسلام قد قرصنيس مدى حلتين نيل نحمل عاوها تصبح ولا أنا كيلين وقرصي ورواك اسكحف أني هبل نبي محمد أنت هذا بنانك شو يستاج إله أباه هذا لصوص ريالي معي وراباه هذا أدونا أمي يصبح هنا نبي محمد دونت يعني هو قرصي هلا قال له فاولاس الله قال له كاذبا أسوي بين شيء متعمد أنا قستي دينتا عن إسلام كأنه كل دارت قستي فهو كما قال سدو الشيغوي قالوي أما فهو كما قال بنت وشيغوا بين وحبا معه وحده فهو كما قال يعني بين وحكا سوقات ملا علمي وقالوا بي المهم هوش مسخير على سكيل علي ومن قتل نك دل نفسه ونفسه بشيء كد لاي عذب ولو على به شيء يوم القيامة نك نفسه كد لاي بر أما سن أما درب سكتورة أرين ولو على بيه ومن قتل بشيء قتل نفسه بشيء وعام مخصوصة وي طيب العمليات الاستشهادية ولا قصة الربية محايا إلا باب معه نينكا سوى نفتي سكد له دليه سيء أدو نعيب إيو ضجر إيو أرقاق سكد له بالله الله لكن أما نينك نفسي إيبي لما ديدنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يعني واد إبسة نفط يعني قصدك حاول إن المسلمين دفاعوا قانوا حيا ليس قصدكم معها إن هذا إجدس وإنما الأعمال بالنيات صادرت إنك ويلك يراي غلام كهاي الراهبك وطببري markii la dili waayo si kasta in la isku dayay kaarta kasta la sameeyay doon saar buur ka tur bad ku sidaa xul wali ima dilisaan ma way qor inta qaato qaansadan iyo leebkan oo geed ugu xidho bismillaah dheebo bismillaah rabbil ghulam halkaan iga tago ninka marka asaga isdilay marka la fiiriyo fahamkeena xunka ay la fiiriyo barihan la orday laam dariiqo lagu dilay ay dariiqo dhan ba soo xidhantay hal dariiq oo lagu dili karo ma jirin doon baa la saaray isku soo dhaqaaqay dadkan waa la rogay boor baa la saaray way gilgilatay asagoo ka yimid inta kale waa halaagsamay wax kasta lagu sameeyay wuxuu doonahay marka in diintu cadaato doonahay waxaad u diji kartaa inaad ilaahaygi horta caabudo kow oo asagoo cuskato oo bismillaah tiraado rabbil ghulam ii qabato geedna wuxuu dhafoka iga togato markaasaan dhiban karaa oo la dili karaa sida yeelan sida ku dhintay dadku dhan baa islaam intuu doonahay way waxay dhahan boqorow rabbi ma tihid bilaash baa tahay ka kac waxaadu weeyaane wiilka yarka rabbigu sheegay baa rabbi ah oo wada islaameen wajidaasu ka rabay wasiilada sababka iyo mubaasharadana marar badan waxa la hormariyaa sababka la hormariyaa طيب waxaynu kaga hadli doonaa mas'alatul jihaad kitaab jihaad kan gaarnaa insha Allah ta'ala aan ka socono walaysa ala rajulin min masara lil nadar fi ma la yamlik waxadan lahayn kuma nadar kartid sheekh وليس على رجل من مسار نذر مسار ليلي فيما لا يملك حسن ملكين وحال اللهين حتى ما يكون نذر كتب نذر وحان كو قالت بقول هلات ان كو كانوا هبل وليه ما لا اسكل هدوا جاي قعنتك ما جرت ما حرام وي وحل اودي قعنتك ku jira oo leeyahay ku nadar ilaahay wadata yeesho nذر وحان كو قال inaan 8 salaado tukado intaas sadaqo inaan bixiyo inaan soomo cibaado wax awood samee ama intaas shay inaan sadaqaysto laakiin waxaan gacantada ku jirin waadoo yiri on ballan waxaan ku qaaday hebla markaan guursado waa iga sii warantaa tir
nin baa saa sameeyey moogta oo raggii taabiciinta ah haweenay diiday oo rafaadaysay yaa wuxuu ihi maalinkan mehersado way furan tahay waa talaaq qabla nikaax wey hala gaara waxba kaama jiro warkaa bilash wey maalinkan mehersata kadib dalaaq uu caqdigu dhaco adu fur wey fur aday kuu taallaa laakiin maalinkan mehersadaba way sii furan tahay waxba kama jiraan bilash wey waxaadan gacantada ku jirin wey walaa dalaaqa fima laa yamlik wa fii riwaaya walacnu lmu'mini mu'minkoo la lacnado ka qatli bay la mid tahay lacnada kugu dhacda iyo ilaahay haw ka hoojiye iyo meel xun ku baxa iyo habaarkaas hadda lacnadu waa habaarka oo dhan iyo cay oo dhan wey lacnad bisa ma ah alibcaad min araxma bisa ma ah walacnu mu'minkoo la lacnado oo naxariista ilahay laga fogeeyo ama la habaaro waxay la mid tahay ka qatli asagoo la dilay xagga dembi ahaan wey laguu qisaasi maayo laakiin xagga dembiga min xayu ismi waa iskaga mid wey wa fii riwaaya man iddacaa ninka sheegta dacwaa sheegasho kaadiba oo been ah maxaa tiri anuu inii hebel baaha been ah xoolahana iskale been waad ku dhaaratay been jaamacad baan ka soo baxay beentaa wey weligaa mada dhaafin nairobi yani wax kastoo sheegata ila waa lacaam man iddaca baa leeyahy dacwa waa nakira fi siyaaqi shart ayib man iddacaa ninka sheegta dacwa kaadiba dhaar been ninka sheegta sheegasho been aan rabaa sheegasho been ninka sheegtaay yatakaaru asagoo ku batanaya beha dheerta isku batanaya ama sharaftiisu ku batanaya ama xoolihiisu ku batanaya ama magaciisu ku batanaya yani waxbuu ku raadinaya yatakaaru biha lam yuzidhu اllahu ilahay uma kordhiyo ilaa qilatan wax yaran mooye sabolnimo ka qaada faqri buu ka qaadi been ha sheegasha waxay rabbi kuga yeeshay tagan war maxaa intaa ku jira malaayiin baa noo taalle waxba ku yeelo waata biilkaad la dagaalantaa maxaa beentaa kugu wata runta iska sheeg xadiidkan waa min afraadi muslim riwaayadan dambe wa fii riwaaya man iddacaa dacwa kaadiba min afraadi muslim way bukhaari ma wariyo baabu nadri nadarkii buu baab yahay 5 xadiis buu sheekhu ku sheegay can cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu qaal qultu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inii anugu kuntu waxaan ahaa nadartu kii nadaray fi ljaahiliyati islaamka ka hor an actakifa inaan ku nagaado oon ictikaafo leylatan habeen wa fii riwaaya riwaayo kale waxaa ku sugan an actakifa yowman maalin aan ictikaafo habeen maya fi lmasjid alxaraami masaajidka xurmada leh kacbada iyo masjid alxaraam inaan ku ictikaafo leyla ama habeen ama maalin baan ku nadaray intaan islaamin ka hor jaahiliyadii tuus islaamku iman ka warran wey maxaan sameeya nadarkaa ma oofiyaa oo hadda intaan taga xaramka maku ictikaafaa nabig muxu sal slam qaala faawfi binadrika nadarkaada oofi maxaa waa dhaaco wey inaad ictikaafto dhaaco wey weliba xaramku masaajidkii lahaa ee loogu talagalay wey marka waa shay wanaagsan shayga wanaagsan hadduu jaahila la joogo haddii islaan la joogana waa shay loo baahan yahay samee la imow baab اlictikaaf xadis ku soo hormaray waan ku soo sharxnay xaggaa lagu laabto soo maaha wayna soo maray xadidkan naguma cusba hadda can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma can الnabi sal slam annahu rasuulku naha ummadda wuxuu ka reebay can الnadri nadarka nadarku waa xil aad u issaartay liأnna alwaajiba biالnadr ama alwaajiba biالsharط waa awkad ama wuu ka daran yahay min alwaajibi biالsharc wuxuu ilahay kugu waajibay ku saaray iyo waxaad adugu is saartay sharciguna uu ku yidhi fule waa kala daran yihiin bannaanka hadaad ka joogto shantaada waqti iyo salaadaha yararkaha iyo sunankaada iyo rawaatibtaada iyo tahajudkaada iyo waa isku qofalan yihiin laakiin allah waxaa tii ilahi waxay ugu leedahay caawa inaan 100 salaado kuu tukado yani shayga ku farxa laguu sheegay ama adaa iska maagaba nadar mudlaqa wey adaa iska marqaamay xoogo fahmaysnaa nadar baad iska maagtay maadaama nadarka aad gashay markaad gashay kadib maxaa ku saaran sharcigu waajib wey inaad fuliso annagu kumaana saarin adaa doontay warjoog waxaa tii ilah waad ugu leedahay ilahay ballan baad u qaaday ballantaa inaad fulisa waajib wey yuufuuna binadr xadiga aad gashay waa inaad fulisaa waajib ah saa darteed maadaama laga baqaayo hadhow shar inaad ka soo bixi weydo ballantina aad buriso khaa'inna aad noqoto beenala ah haddaba hageli joog taasoo nabigu diidanya marka iska jooga wey daaya war ka jooga annahu naha ummadda wuxuu ka reebay can الnadri nadarku ka reebay wa qaala wuxuuna yidhi ina الnadra nadarku laa ya'tii ma keeno bikhayri khayr ma keeno khayr lama yimaado khayr cusub ma keeno wa inamaa yustakhraju waxaa wax lagala soo baxaa bihi nadarka min albakhiil bakhiilka wax lagaga soo baxaa nin bakhiil ahoo wax bixin waayo
yaa wuxuu dhihi ilaahay maanta haddaad dukaanka xoogo ii kala soctiiso oo bedelnaha iga bixiso 100,000 baan masaajidda la dhisa ku bixinaya hawshu isku hagay 100,000 ma sabixin moogta war 100,000 markuu raba khayr ma bixisi oo masaajidda gashadid waa khayr u baahan tahay shadiga uu galay ee loo fiiriyay 100 ku bixiyay mooyee bakhayl qaduuc oo gacan laga go'a ayuu ahaa oo shilin bixinayn حتى عبادتي كما صار بحق عوض كسر عبادة لو تركيب ورد العبادة تكون بنانيت أو صلاة بديس أو صونك بديس أو خيرك بديس نحن أقول حلول إلهي وضد عوض حقوق إكرا ترتو والإسلام في حافظه بقول صلاة بنت تكون هي شن مرمو وانسومها هي عبادة الله تركيب وعبادة شرط أكون عوض عبادة كليب ستي أي ربي بكليب ستي كليب ستي أنا لمرة محادوني أن إسكا أولا تما دهوش آخر ربي أكسكتو أجر كذي مركب ماشي بدل باس وقلي ولا قد في عينه بدل ما ماشي وقلي ولا قد في عينه يعني غالبا وينذركم خير لمن يماد لكن نذر بدنه خير يجري من نذر أن يطيع الله فليطيعه من تكون نذر إلهي إنه أضيعه ها أضيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه لكن وحاول غالبا ضدكم بلانت ويكجبيان ويكسب بحوايان من شيخ نذر كاسا قال وان الله يكوي أركيسا فنانك بمركب الجوب وإنما يستخرج وحاول لقى صبحا ولقى قاتل لقى دعسدا به نذر كما البخيل حقيس وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت وحان كن نذري نذر الأختي لي نذر كي مركب والله بقيبوت أما إلى تدحق بالله قيبية نذر كهدوية نذر ضاعاء وشيء ضاعاء إلى سميساء أما الثلاث كتاء أما القرآن برتاء أما الخير كلاقة بتاء إن أضلت ما داي واجب وي وثلث كفارة يمين بلغ الربا كفارة النذر كفارة يمين طوال مسكين بالقود أما وآهرد بحن أما أضوان بالحرين هدي اللواينا وأثومي سدح بري وأسكمت هداد كل نذرت إلهي سبحانه وتعالى عاسدنا مع عافيك ما السمينيس حتى إله وحد بلن يقول هذا هبل ما أنت صايد إيش هبل إنا نقول يا رب سبحانه يا نذر قوات ما الضمانة سلامي حباك ما جمدك بلا شوي إن البرسو أولا سميني واجب وي ما سمين كرتين ثانيا وحال راجحة ولبا كفارة لقربا إلهي بعد كحد قدبتي أو شيء حاران أو بنانين باب كن ذرتي حقوق قرص بك وجر إذا درك وجرته شرع مركو حكولي وانا كفارة الاحتمال بنتي يو نذرك معصيتها هذا نوع كفارة قدنيسة ما سمين كرتين علوم حيليين نذر كفارنا ما لها لما نسمين كره طيب هدوية هاي مركة نذر اسكب بنانه مباح شيء مباح لا تركز ولا فلين كرا أما ولا اسكدين كرا لكن عبادة بالله سبحانه وتعالى ومضافرين لفري عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال صحابي يقول نذرت أختي ولا شيء بان نذرتي أم حبان بنت عامر بلو يغنى أم حبان بنت عامر ولا شيء به ما حيكون نذرتي أن تمشي إلى السعطول لغيصه إلى بيت الله الحرام حيث الإله إن حجاد أولادكم أما عمره يستو ولي وحان نذر أن كوك قال إله الشرط أن كوك قال نذر كوا شرط دي وأذك شرط وحان كوك قال شرط بيدي جنس والد انتي بقبر الله تذكر المسائين حالي لقصوا حريجري بس أوشا ميدان صمري بس أنت حقود لواية أما حولها قيلي بابيها دعينا يا أما قرشبانينها يسعون وهي حقوقها شيء أبيرين إيسا وحتقها هي قيد أما حتقها هي ميل قبري ثم بقصوا حري أما على بقصوا حري شيخ ابن الشرط بان كوغل هديها الشاب اي سنه كدش اما اسلامته اي هاجاكت اما وحو كلا سعدان شن نفنا كو غورع ولو افين استدراج بلغو سمي وخي با دحي وحو غورعيا شرك iyo kufri ku dhacaya la fiilaya hawsha iyada gabadha marka waxay ku nadartay inay u socoto ila bayt illaahi alxaraam ayadoo xaafiya kabalaana an tamshi ila bayt illaahi alxaraam xaafiya kabalaan cadaan bal riwaayad kale waxay cadeynayaan أيضا ولي مدح قاون ناشرة الرأس أنا واحد مصر إيا جنباء قليل بيته حقا عقا عض إن ربي السيدة يقول ذلك طيب نبي قال له ودي رواية مرك اللفظ حافية بين قوسين ليست في البخاري كم مجرد ومسلم بأسكال حافية بين قوسين حافية أيضا عقا عدانة فأمرتني قبل وحي أمرتي أنا استفيا إن أنسو سؤال ويديه لها يوسف سأل ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث النبي أساسا كنا دريه بل أرد النبي قلت يسوي ويدي أنت أنا هوش باللعبين أنت أنا أروح عضان دقاقين
madaxayguna qaawan yahay cawrada muuqato ayib ilaa cawro way madaxeed ii soo weydii ana astaftii anaa u su'aal weydiye rasul lah sal slam faاstaftaytu waa usoo su'aal weydiiyey nabigo gabadh walaashay baa sidaas ku nadartay su-aasha nabiga usoo weydiye bay tiri haddii adaa rasuulka caalimka muslimiinta ii sheeg hawshaas su-aasha ayada faqaala nabig wuxu sal slam litamshi ha socoto ha lugayso in istadaacad wey waltarkab gaadidna ha fuusho in lam tasadec ruux markuu lugaynayo soo khiyaar ma laha marna haska lugeeyo marna gaadid ha fuulo laakiin wax shardi ah ma jiraan abaadiil wey markay sheegtay maxaa yeelay ilaahi subxaanahu wa tacaala lugteeda iyo kabaala'aanteed muxuu ku falhayaa ilaahay addoommaha inuu dhiba ma doonhaya inay caabidaan buu doonhaya adoo cagacadaan inaad lugaysa maxaa ku jira maxaa doon ilahay yaa ku darsada cagacadaanta war beydka togo soo xaj baa lagu yidhi cumraysaa lagu yidhi ilahay caabid yaa ku cagacadaan ku soco shuqul shiico weeye shiicada waxay leeyihiin karbaliya meelaha marka la joogo iyo ciraaq oo kale in kaba la qabaya ma banaano maxaa dhiiggii waxaa ku daatay dhashii nabi maxamed dhiiggii xuseen baa ku daatay sida qolyahan sakaraadka hadda markaad xaramka tagto kale xaram almadani kaba waxay kusoo siibahayaan banaanka hore nabiga loo soo dhawaaday kabasiib maxay tahay yaa kaba kusiib yaa ku yidhi masaxaaba siibi jirta kabaha masjidka xaram almadani maad arag miya xaram masaajidka nabi maxamed masjid nabawi markay doonayaan nabiga soo salaamaan kaba waxay kusoo siibahayaan banaanka hore ganjeelka weyn laga soo galo adoo kaba qaba soo gashaa moogta marka masaajid gudihiisa timaadun baa la siiba soo maha ayagoo banaanka hore kusoo siibahayaan suuqu tamr agtiisa kusoo siibahaya marka howlaha looma baahan wadaad cagacadaan lagoon jiro weligiiba kaba aan qaadan jirna waa garanaya lama rabo meeshan waa nafta la cadaabahaya maxaa loo cadaabi nafta cadaab laguma dhihin waxaa lagu nafta kaalmayso ina linafsika calayka xaqa gaadiid weeye gaadiid lagu danaysanhayo weeye aysan kaa burburin bal tartiib yaa la rabaa timaheedana timaha ha asturto gambo weyn ha qaato mar dambaysa hawsha noqonin bal waa la canantay ayib وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صحابي وحوري استفتى سعد بن عبادة سؤال ويديي فتو ويديي رسول الله رسول كلاب سؤال ويديي محوك سؤال ويدينيا في نذر وقالي نذر هو يدي قش نذر كاسو كانها على أمي هو يدي عمرة بنت مسعود بلو نجري وحيا هيد قبله نام حد على قالي بيه وحيا دي متسانة شناده هجرية جيريوتي nabi maxamed oo ku maqan qaswatu duumat aljandal ku maqan ay geeriyootay markii loo sheegay nabigu inay dhimatayna qabrigeeda intuu tagay ku tukaday ilahay u bari subxaana wa tacaala gabadha u qayban oo sacad hooyadii ah marka nadar ay gashay oo cidqu raqaba ahaa inay qoor xurayso ama soon ahaa ama salaado ahaa ayadoon fulin nadarkii aan weli fulinin bay geeriyootay fii nadar buu nabiga ka su'aal weydiiyey kaanaha calaa ummi hooyadii kaana calaa ummi توفيت way geeriyootay qabla an taqdiya توفيت waa la oofsaday qabla an taqdiyaha intaysan gudin nadarkii ka hor bay geeriyootay iyadoo nadarkii aan gudin oon la imanin yaa la oofsaday oo xijaabatay faqaala rasuulka ilah sal wuxu uhi faqdih ka gud canha hooyada nadarkii aduu ka bixi hadduu soon ahaana ka soon hadduu sadaqaha ka bixi hadduu addoon la xoreeyaha ka xoree hawshu waxaad qabataa layidhi ayib marka nadarkii waalidkoon oofsanayn xataa hadduu salaad ahaa culmal waa laga tukanaya ibnu cumar iyo xasan albasri iyo keyrkood waxa laga wariyaa aabbaha ama waalidka ama qaraabadii oo ku nadarta salaad xataa in laga tukanayo leanna acmaasha badaniga oo salaadoo kale iyo niyaaba ma gasho wakiilna ma gasho laakiin hadday nadar tahay waa min baabi shuruud bay leeyihin soon lagu nadaray xaj lagu nadaray sadaqa lagu nadaray qur'aan akhris lagu nadaray cibaada lagu nadaray waa in laga fuliyo leanna waa shardi uu waalidku isa saaray hoyada isa saartay wixii shardina waa la fulinaya ayib laakiin salaad layskama tukado nadarka laakiin culamaa sidaa qabta xataa in layska tukanayo laakiin sida raajixa waa in layska tukanayn wixii ama soon kale ama xaj ama zakawaad ah haa وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كعب بن مالك نبي وحكور يا وشاعرك النبي محمد الصلاة حسين بن ثابت يا كعب بن مالك يا عبد الله بن رواحة بيهاي كعب مكوى صوب قبيه انت بقى وحكو قبي جري وحكوها نجيب الجري دقال يا أود إن قال حنيها لدقان دونه أو سيف لك شقين دونه قلف يا أولها سي فردوه كسي دينجري
cabdullah bin rawaxna inta badan wuxuu ku caajimku caaya gaalada kufriga iyo diin xumada iyo asnaamta ay daba taagan yihiin iyo qurunkan buu ku caayi jiray xasanna wuxuu samayn jiray yani qabaa'ilkoodu qaybin jiray qolyo doqonnimo ku caayi jiray qolyo fulinimo ku caayi jiray qolyo bakaylnimo wax lagu yaqaanay qolyo foolxumo saasuu sidayn jiray ansaabtuu geli jiray iyo qabaa'ilku kala qaybin jiray nima meel baa loogu fiicnaa lakin wax u gabi badnaa kulligood xasan ibnu saabit baa gabay u badnaa saxaabigan 80 xadiis buu wariyaa nabi ka wariyaa 80 xadiis baa laga wariyaa saddex way isku waafaqaan saddex xadiis bukhaari hal xadiis buu la infiraada muslimna laba xadiis buu la infiraada wuxuuna geeriyay khilaafadii muawiya sanadkii kontonaad buu geeriyay hijrada kacb bin malik abu bashir qaala wuxuu saxaabigaas qultu waxaan yaa rasuulka ilaahayow inna min tawbatii raggii saddexda ayo cala salaatin khulifuu buu ku jiray غزو تبوك انت عذردار اوغا هادين كدبنا dib loo dhigay garanaysaan ba ku jiray xadiis dheeraad garanaysaan fi saxiixayn markii tawbadii laga aqbalay ee ilaahay ugu bishaareeyay ee loogu bishaareeyay nabigu uu yimid wuxuu yiri yaa rasuulka ilaahay inna min tawbati yani inna min shukri tawbati tawbadeeda shukrigeeda iyo mahadnaqeeda waxa kamida maadaama rabbiga tawada baalay oo munaafiqiinta aan la raacinin oo ilaahay in xariisto abaalkayga waxa kamida oo rab aan geesanaya an akhlaca inaan ka baxon siibo min maali maalkan leeyahay oo dhanba inaan ka wareego oo sadaqaysto fi sabiila dhamaantii anoo kaligay oo murmudhi aan ka soo baxon meelaha marka aan shaqaysto wixii hanti aan lahaa oo dhan waa sadaqa fi sabiilillah sadaqatan ayuu sadaqa ila Allah wa ila rasuuli iyadoo sadaqa ila Allah ila dartaan u bixiyo ila rasuuli an khali'a yani an akhruja yani waa go'an adeeg yani toobadu waxay tahay iyo mahadda intay la eg tahay in xariistaas qiyaasay saxaabo garanaya aduu laakiin waa lagu dambi dhaafay iyo toobad baa laga aqbalay hawlahaas dhib badan kuguma hayso dayib shilinka ku daran shilinkaasa ku dar faqaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam amsik calayka bacda maalika amsik hayso xajiso calayka dushaada bacda maalika hantidaada barkeed ka hayso xoolaha wax soo reebo hadhow waa faqiir iyo zakama bixiye iyo asiga waa baan wax loo qabto tabar uma hinne war xoolaha waa ku asturan tahay waa gobnimo iyo sharafnimo weeye haddaadan kharibina bal xoolo iska hayso xubna maxay ma xoolaha nis baan bixinaya maya ثلثان baan bixinaya maya maxaan bixiyaa ثلث saddex meelood meel bixi inta kalena iska hayso riwaaya kala cadaysay fi sunan wa fi ghayriha bacdiga marka waa ثلث inuu bixiyo baa loo ogolaaday inta kalena u reebto فهو خير لك ساسا ku khayr badan inaad xoolaha bar la hadho inta kalena aad sadaqaysato yaa khayr laka ku khayr badan dayib باب القضاء قلب بابه قضاء الولاية جمع أقضية ويان كغطاء وأقضية لحديث بوشيخ وشيخ بابك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيتر عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث منك كان سود الرسية في أمرنا في ديننا أمرنا هذا يعني دين النبي نك كسو درة من أحدث منك سود الرسية كسو درة كسو بيرشة في أمرنا دين تيدا ويتلقى وهذا دين كأنك كان كتابك السنة يا جماعة المسلمين ما نيجي كسر درة ليس منه عن دين تكمل هين فهو رد شيء وعلس يعني ومردود والعلم ياوي بناك الله طور هي يعني دين تو ما يسترنت اليوم أكملت لكم دينكم نبي محمد باشر حي ومضى دين تو عدي صحابة كل قنتي تابعين باكسو قولي وكو عديها marka leeyahay ana wax keenaya taa macnaheedu waxa weeye hawl loo baahnaa buu nabigu ka gaabiyay nabiga gaasiro gaabiyay way saxaabadii baa gaabisay way qowlki iyo istaan iyo daraabid baa ku jirta la daraabayso maamulkii iyo taladii iyo diintii nabi maxamed taa darteed maalik wuxuu oran jiray ninkii diinta waxbaan ku daraaya bicali yimaada fa huwa mustadrikun ala rasuul wana munaqis darteed waa kufri bay riday noqon kartaa bay ku keeni kartaa laakiin wuxuu ta'wiil ku yimid إنه ولا كل اجتهادي أما العام يقول تقليدي لغو تكفير الماء وهم الله شرحين أي تهي دين الآن أم بنانين وماذا لغو تكفير الماء تكفير كي تفسير كي تبديعي الله سكي إلالي هؤلاء قنوة علماء ووينة يرى كرجل نحرتها الله إلالي الله إلالي هوشان لغو تبديعي هو الواقع اسكاله سبودي روح أصدع عن بعض أذكو حابس ومشكلة شيخ ما هو حكار الله قيبني وشيء حكم أو شروط بحان أو موانع لوي يعني مرحبا تفضل يا شيخ مرحبا شيخ
qabri ku nadiray ee xarig iyo shardi ku xidhay sharad duusaa ku dhinta asagoon ka toobadkeenin naarta ma laga soo bixinaya mise ku waaraya buu cabdiraxmaan soomaali badan buu rabaa inuu dhaho naarta ku waarhaya halkaasoo u socdaa soomaalida sidaas samaysa inta badan waa juhalo wey dad shirki iyo sunno kala yaqaana ma ah waxaana tawxiida iyo waxaana shirka ma kala yaqaana culumana u fatwo jirto sidin diin oga dhigtay waa macduuriin nimanka u fatwooday ee waxan baray ee u keenay baa aakhir la weydiinaya ayagu ilaahay u caddaanayso la cadaabi maayo insha allahu tacaala haddii la cadaaba naar ku waari maayaan yaa sheekh cunugu xalaal wey wax dhiba ma lah wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan man camila ruuxii sameeya camalan hawl qabta ama cibaado la yimaada ama mid siyaasadeed waxay doona noqoto ay camal wa nakira fi siyaaq shart man camila camalan ninkii hawl sameeyo camal sameeya laysa uusan ahayn calayhi cala hada alcamal amruna diintayada diinta ma waafaqsano qawaacid diinta kuma socdo diintu sidan ma qabto fa huwa camalka asagaa raddun yacni marduudun waa la celiya xadiidkan marka xadiid weyn weeye oo qawaacid shariica nawowi iyo xaafid ibn xajar iyo ibn rajab alxambali iyo culamada islam o dhan waxay leeyihiin xadiidkan weliga waa inaad jal ku wadato inaad dhigta ma waa inaad xifdasiisuba mar kastoo lagula yimaado shay bidca ku garaac ilaa uu ruuxu la yimaado daliil cad oo tusay waxaanu diin yahay la taagno wada man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad yani waa qaacida jaamica wey yani diinta waa in laga ilaaliyo laba xaalo nuqsaan iyo ziyaado nuqsaan iyo ziyada laga ilaalinaya waxaan diinta ka mid ah in lagu daraayo mamnuuc wax diinta ka mid ah in laga gooyana mamnuuc wey marka nuqsaantan waa laga ilaalin oo niman badan baa wax diinta ka mid ah inta badan inkaroodha diin ma ah yani lijahlihim jahl asagoo ku sugan dartiiba wax u diidaya kaa waxaan leeyahay iskaga dhaqaaq meesha waa fashilan tahay ninna wuxuu leeyahay aniga ahlu khayr baan waxbaan jecelahay waa in diin waa loo baahan yahay yani ninka aan taraaree kacaan ka dhaafayna waa in la soo celiyo ninkii diinta qayba ka mida la harhayana waa in la warsiida diinta akhribin yani waa in ziyaadada nuqsaantaba laga ilaaliyo wey xadiidka marka nawowi iyo fii kitaab alarbaciin muslim buu u tiriya lafdigan dambe intan dambe man camila muslim bas u tiriya cabdilxaq alishbiri fii kitaabi aljamc bayna saxiixaynna asna wuxuu yidhaha bukhaari ma wariyu yidhahdaa lafdigan dambe laakiin sida raajixa lafdigan dambe xataa bukhaari u wariya isagoo mucallaq ah ayuu keenaa bihada lafd man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad fii kitaabihi kitaab الاعtisaam aakhirka saxiixiisa kitab الاعtisaam baab ida اجtahada alcaamilu aw alxaakim faakda uu ku keenaa bihada lafd isagoo mucallaqa isagoo mawsuul ah ayuusan keenin mooyaan isagoo lafdigan oo mucallaqa ugu keenaa marka lama odhan karo bukhaari ma warin lama odhan karo ayb labada lafdi bukhari waa wariya wa can caaishaةa radi allahu tacala canha qaala caaisha waxay tihi dakhalat waxaa soo gashay hind bintu cutba gabadha hinda loo yaqaano oo ina cutba ahayd waa gabadhe imra'atu abi sufyaan waana abi sufyaan bn xarb xaaskiisii weeyey goormay u soo gashay yay u soo gashay calaa rasuuli lah sal slam rasuulka ilah bay u timid faqaala waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina abaa sufyaan waa maalinka islaamtay waxay dacweynayso fatxu maka islaamtay abu sufyaanna fatxu maku islaamay wax yar maalin ka hor waa min muslimat alfatxi markay islaamtay kadib haweeney aad u caqdana waa ahayd cawl adag haweeneydii cunto weeye beerkii xamse roogtay kadib markay la qaweeyato iska tuftay hinda marka waxay nabi maxamed markay islaamtay tawxiidsatay oo diinta soo gashay kadib bay dacwo bilowday waxay nabi maxamed horta abu sufyaan waa nin gacan adag dacway bilowday way rabtaa inay ogaato wax nabiga kala hadlay oo yidhi haween haddaad tihiin zinaha la iska ilaaliyo waxay nabi maxamed haweeney xor ah oo boqorad ah miyaad zinaysanaysa yani way la yaaban tahay inay haweeney xor ah oo xurmala ay zinaysato aad la yaaban tahay yani addoommaha iyo dadka yar liita baa zinaysay tiri laakiin xor si u zinaysa way qaribsatay yani waxaad dada weligaa samaynin uu kugu cusbaan wax cusub buu kugu noqonaya wadaad ba intuu ka istaaga masaajid wuxuu ka hadlay maalmo dhan ka hadlay muslimiin ay salaadaha loo dadaalo taraawiixda hala tukado witirka hala tukado qiyaamu leylka rawaatibta sunooyin buu ka hadlay maalmo dhan ba dadka sunooyin ku waanahay nin baa sheekh sunooyin baa ka hadlaysaa salaadii waajibka iyo faradka markaad heshid wuxuu akhwaanow ma ninaan salaada faradka tukanin baa jira buuri
midnaan faralka shanta waqti aan tukanin oo miyaa jira bulshadoba yani weligaas uu xiro iska uu tukan jiray sidoo ku aqliyeystay wuxuu ka hadlay bas sunnooyinka nin muslima oo salaad farada ka tagay ma aamsana oo dhacday sayid marka wixii adoo weligaa sameeyay qariib kugu noqonaya nabigu uu timid xiri inna aba sufyaan ninka aba sufyaan ninka yey qabay hortan u dhalay rajulun waa nin baytira shahiihun gacan adag waa bakhayl baytir waa bakhaylnimo weliba dadaal u dheeriyahay ruux isma dhahan way qaduuc ay dhahan oo kale way qaduuc bay yiraahdaan maxay ku dhahan ayadu maxaa u taqaanaa shahiih u kaaday Abd Fattah wala wadiin Soomaaliga bakayl baa fahmi laga ayaga sacwaay la yu'tini imsiyo min an-nafaqati annaga hada ku tilmaamin mayno Abu Sufyaan wuxuu ahaa bakayl shahiih dhimayno laano waa nin iyo xaaska isdacweynay haweenadu waxa laga yaabaa ninkeedu deeqsa oo haliyay inay tirado waa laga goobay waa wax khariban marka haweenay ragoo la kuma qabto soo biilka bixinayo hawsha ka adag inay tirado waxban bixiyaba waxa laga yaabaa inuu leeyahay hawlo kale uu ku hadlaynayo dhaqaale kale iyo xagga reerka laga waxay wax badan ku hadlaynayo baa laga yaabaa laakiin marka wuxuu aragtay inuu yahay nin gacan adag u aragtaa nabiga xukunka ayadu ay sheegtay iyo ku dhisay mas'alada tayib la yu'tini imsiyo nina nafaqati biilka xaqiisa ma yakfiini wax ugu filan aniga hindaa oo yakfi ku filan waliba baniya wiilashay carruurtayda wax biil aniga ugu filan iyo biil carruurta ku filan ma bixiyo masruuf ma bixiyo ugu filan bayt wax yar oo nafqa goyn ahayn oo noolaan hadhimanna ah wuna siyaabay casha waqado illa ma akhatu waxaan ka qaato mooyeen bayt min maalihi maalkiisa bigayr ilmihi asagoon ogeyn waxaan ka siiban mooyeen shirkiisa kala baxa mooyeen oo daba gooyo mooyeen ma tiri bil fiicna ma siiyay dacwo culus bay kanta illa ma akhatu waxaan qaato mooyeen bayt min maali maalkiisa kamida bigayr ilmi ogaal aan ku qaato asagoon ogeyn aan ku qaato oon ka xado فهل علي دشيده ما yahay في ذلك arrinkan sameeynay maadaama uu biilka nagu yareeyo oo naftooda naga gooyay inaan xiro ka siibo oo caruurta ku bilaano meel kale geeyeen min junaahi wax dambi ma saarayaan min junaahi yani min haraj min ithmin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوري خذي قادو من مالي مالكيس بالمعروف سي وناس حكو تكرفل هبيت مالها خربه يعني wax yar oo kugu faayay caruurta ka qaad بالمعروف سي وناس ومعروف كل سن ما قادو يكفيك هذا kugu filan ويكفي ku filan baniiki carruurtada wiilashada ku filan waxa laga qadanayaa haweenka in la beelaayay oo la bixiyo nafaqadooda masruufka inay waajib tahay carruurta yarna biilkooda waajib ku saaran weey waxa kale laga qadanayaa wixii yar haweenku ay saas u qaadaan inaan tugnimo la odhanayn gacan aan loo goynin tayib waxa kale laga qadanayaa haddii haweeneydu ninka ay ka soo dacwato xuquuqna ninka ka warqabta ama xaaladaha ka leeyahay maxamed nin quraashad weey abu sufyaan oo nin reer quraashad la yaqaan weey xaalada hore nabigu ka warqabay Sufyaan uu yaqaan suurtagal gabadha waa ka soo dacwootay cilmi horena waa jiray ama maxaad hawsha ka warqababa inuu qaadigu mararka qaar kood bi cilmi wax ku xukumo laga qaadan kara ogaal aad ogtad ku xukumi karto dayib وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد سمع وحوم مغلي جلبة خصم لمن دودها هي يلقط سبق ضد مغلي جلبة يعني واختلاط الأصوات نبي قوس قدر مدرس ممكن مرمى هيان هذا كلاس قافي هذا كلاس فوق لقى الهيا يلو بعض مقلي ساي سبق إيو صوحا جلبة أو جينك الهرمري وحاكل خصوصا في الصحيح لجبة والله انك الهرمري لجبة اللي قال واسمت وان سبق إيو مرن وي إيو بوق وي يلق وي يا شغر بسماه شنقر وحاوي واحد عبسها شنقر وقنقر ماشي وحاوي وحس قافة هيوي هذا الله اسكو ديرن دورنا يصدافي ونضع ها هبن dadka kugu soo socday Allah yaa weey sheekaysanaya weeyaan laakiin waa dood walaal doodeed muran qad garanaysan adu muran buu maqlay weey sawaxani muran buu maqlay khasmigu waa mufradka iyo mudakkarka iyo jamaca waa hal lafdi bis loo isticmaalaa khasmana wal yadaa yani nin doodahaya murankiiba maqlay ama laba doodaysa murankood maqlay weey xagee ku doodahayeen bibaab hujrati qolkiisa albaabkiisa ku doodayay qolkana وقول أم سلمة مالك وجوه بباب أم سلمة رواية العديسي في الصحيح قول أم سلمة وجوه بنانك سكري ينوحوا كم مقلي مرن كذي عهيو يذكر دوله يعرف كويستان فخرج إليهم نبغى صباح فقال وحوري مركو صباح أرنتي وأقاري
حنا وحنا كلا حكم قرتي بقاضي ألا هو إنما أنا وحنا هي بشر بن آدم أهي أنا بن آدم بان هي وإنما يأتيني وحنا إيمان الخصم لما يسيسته دوضا إيمان دوضا هي فلعل وحلقة بعضكم مركين أن يكون إنه يهي أبلغ متك بليغسن كأفتهنسن كعد ملن كعرب توسن كجرم أك نبا أصوى موقت قرت لبعا عديسن كرين ومد فاجر وهو شوق جيدا بدن سوق بي ما لبدا نصوم مري مصره يا عطر مرين هي كقاضي مركا نبي وحراعي يعني كقاضي وحراعي عربك هي قرتو نكن كنسدي قرتو كنسدي مغراتيغيسي لaba beenalayaal adhi anaga mara kacnay hashan anaga ogeyn baa fir hebel war ka daayay maya tayib sidii ninkii reer Shabeelle intii sac qoolisa asagu u dhash oo ugu xidhnaada jiko ugu xidhnaa iyo afar beenalayaal iska maad kacay nin qaadaa loo geeyay uu xukumay beenaasha uu xukumay sac anaga la yidhaha asaga muxuu ana askari xalay afar beenalayaal ugu maqad kacay qadiga si uu xukumay nimankii tugta markay la dhaqaaqeen ninka reeshay ar ilaahi ma sallo buuri ar ilaahi ma sallo buuri ilaahi ma hadlona kala qabto buuri mankan saciga la dhaqaaqay yani arabka la xukumaya ay yakuna inuu yahay ablaqa mid ka balaqsi yani alxanawi min ba'din oo fa ahsibu an maleeyo ama fa ahsabu an maleeyon taawiyo annahu saadiqun in run sheegay ninka oo fa aqdi lahu sa wax ugu xukum hadalkiisa baan raaci arabkiisa iyo gartiisi waxaan xukumaya هموينا مركا أنيقا حكم كان حكمي إن عربكنا راعي مقراتياشي واحد كيستيني داريهني إن شيء يكون بني لأن حكم الحاكم حكم الحاكم لا يحرم ولا يحلل أصلا وحام حكيم محرم لكن حقيقة واحد تاي شيء كبدل ماي لما كانت تصع الله حكمي توكتو الله حكمي قاتي حرام بقاتي ظاهر كقولوا قالوا حكمي موين حقيقة مؤق علم غيب ما عالم غيب الله سبحانه وتعالى ما هي قيامك هو كوتا لوي مرك انت تكون كسنتان نبي قال حكمي يا نار يا رمضان فمن قضيت انك روح حكم له اسجع بحق مسلم الروح مسلم حق هذا حكم ننك استون حكمي الروح مسلم حقي فانما هي حكم كانسي وحاول قطعه من نار وقبل يشب نار فليحملها ساعه كقاته او يذرها ما كتب اما ساعه كقاته اما كتب يعني معها أمر قاضي وحاوليان تهديدوي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفروي طيب وعن عبد الرحمن بن بكرة رضي الله تعالى عنهما قال صحابي وحوري تابعي قاس كتب أبي أباه با قري وكتبت له أنا وأنا قري مر أباه وراء قرى أدري ويل ودلي مرنا أنا قري وأباه إيري أما أنا إسكي بأقري لما وراء قدوي مرة تقع قرى قاعد في قري مرة ويلك قري وكتبت له أنه وأقري إلى ابنه ويلك سوى وراء قدري عبد الله يا ابن أبي بكرة ويلنا بكرة عبد الله يا مرة أبيه وأقري مرة ولك بأقري وهو لكن قاض أها بسجستان والحل هو قاض قالوا كي هي بسجستان سجستان ودول كميدة أفغانستان دول كميدة وين ولي بكابل بيدوله ولايات كدقميونك كابل هوسي ما دول اسكيل عليه ودك اسلاك دوا الله يسمع يا كوي تاج ماشي ما سجستان بنقرا ما سجستان طيب marka waa gobol way ma aha qabiil gobol way muxuu qoray odaygu wuxuu leeyahay alla tahkum hukumin qaadiyo alla tahkum kala hukumin بين اثنين لبا هكذا حكمي وانت غضبان وحناقصن او كعسن ومسخ كعسن تاي او نيرفوس حكمي بالله waxa laga yaabaa kii kugu maxanaaqay indhaha kugu taagana tira warnaga amus gard wala leeyahay marka lama rabo yani xilli kasto shucuurka uu kacsan yahay ama aad u farxsan tahay kale ama hatta xilliga aad u baahan tahay gaajo haday ku hayso dabacda ka halabi saagadoon quraanin ama qadaynin casarka ninka ku salaama xuquuq marma gacmadu la tagaysaa واساس مركز gaajada aad ku hayso waa dabacda ka halabayso gaajada badan farx badan cabsida badan xanaaqa markay saxariga ku dhibayso lagu kaasaynayo waxa soo dhan baa lama ogol marka soo fikirkaadu mas'uul yahay mamnuuc weey waxa laga cararayaa inaad door iyo xayf gasho oo darti kharibto dayib allahumma inuu ruuxu macsuum yahay mooyee nabi maxamed haduu xanaaqsan yahay iyo haduu faraxsan yahay
يهدو عادية كل وأصمت ما خلدمي روحي معصومة لقمها الله waxaa laga hadlayaa ruuxa ay dhici karto markuu xanaaqo inuu antaraaro hawsha waa in la ogaado fa innii samictu rasuula rasuulka ilaahi maqaabo yaquulu asagoo laa yaxkum axadun ruuxiisan xukumin ama ma xukumo bayna snayn laba inta ka dhaxle walxaalu waa qadbaan lafdiga muslim baa iska leh asagoo xanaaqsan ama cadhaysan waa fii riwaaya kale waxaa ku sugan laa yaqdiyanna xakam yuusan xukmin yacni garsoore yuusan gar qaadin bayna snayni laba inta ka dhaxle wahuwa qadbaan asagoo xanaaqsan وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم أو ألا أنبئكم يا إذن ورمين وإذن شيئين وبإذن شيء هياي بأكبر الكبائر كبائر تمد أوي نارو واكل سبحان الله يستان ذنوبتنا واكلوينت إسلامكم واكلوية شيء كوين مجران حتى عمار شخصيك كلا فضل بدن قرآنك كلا فضل بدن آياتك كلا فضل بدن أنبياء كلا فضل بدن goobaha iyo dhulka kala fadli badan suuqa yaa u shar badan waxaan u khayr badan masaajidda yani xilliyada kala fadli badan laylatul qadr habeenaha lamid ma ah yawm an-nahr maalmaha ka duwan tahay jumcadu usbuuca lamid ma ah yani bini aadamkii basharkii maalmihii goobihii wax kasta kala fadli ilaah baa khalqiga kala duway hadaba waa yahay xataa dunuubtii waa weynay midda u weyn ma idin sheega ثلاثا صدح goor nabi ku xiriy alaa unabbiukum bi akbar al-kaba'ir ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله نحن ها الله نو شيك ونو شيغيساي قال حدا الاشراك بالله اله لو شريك له عمل لقبتاي كاو خير بن التوحيد اله لو وحي سبحانه وتعالى عبادته لو غنيو كاو خنا والاشراك بالله وعقوق الوالدين الاشراك بالله كتب التوحيد لقى قري هلا اخرسته اصول الثلاثه فتح المجيد كتابه الاخرس كتاب السلف القرآن عقوق باب التوحيد هذا شيء هذا الله أخشت طيب هل السوق هذا وحي الشركة وحن شركة أحي لأنه الشركة مضحون الشيء إنه كقرصون هي من دبيب النمل على السفر لا يحسب سبقة وأملس أمن قدعر المجدئة قرآن شكو سعطايا من شنقر بضا كما ليس ساسو يكوصوا الأمانية شركة يكوصوا الأمانية ما أنه أهل التوحيد بأنا وأنقر لنا وحكم الجناشة أتكد بيت الله والوصول الأمان الله كل شيء بالوصول دعي كرا كل هذا حيدا وقف شيء بتوب صدع كرا زما الله صدع باشا الله سيلال طيب وحقوق الوالدين لبد الوالد أو لو عاسي قروب والد كان وعاسي قروب والد كان شيء واجب كان والوادع حتى شيء مباح الوادع وحيكو أمرين حدوثا معصية أهين ولو بارين فلين طيب سواء حديث جيرين جور إيه تعليم والد لو عاسية والدك من قرسن هيا تعليم وحبرشان دون هيا والدك ولو عاسي كره حبك ما جران شيخ قول كان لو عاسي مايو تعليم كان لو عاسي مايو محايا لي مقالة كبر عجل لها ضوب اسكت حجوك وحبا والدك رفقان هذا يسوق فسعانه كدنا خيره اللهم مركا هذا سنة أهين وقبل كاي جوغان هذا أتكويله علمي واجب كاي علمي حالي وحكو برات أتكويله وتفريس مركا يلا واجب طيب لكن أنت والدك الله بارن فالك ولا الله بارن ولا يان والدك يلا واحد قلبي مايا علم المادي ما هو علم الكتاب والسنة ولو علم الكتاب والسنة ما هو أنت واجب كوة أنت مركا كسارا صلاة دقابك تكون لحيد زكاة تطبع لحيد واجب كما علمك حالي أول علمك حتى فكيسة ما طيب نبي الحكومة من قل جري ولد ربي اسكاكدك اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبنا قبل المشيب ومن مال يكون علي عذابا ومن ولد يكون علي ربا إله وحان كاما قال ولد إلمان ربي اسكاكدك oday baa tahay masaxda waa fuday dadkada waa tageen way kiyaata naga fadhis maxaad og tahay waad ka dhawaaqdaa naga fadhisaa ku nadi boqol laba gaban hooyadii baa cabsan oo gabadha ka cabsan oo odayga baan wiil ku dhalay halka aan kula dhiran karin aabow soo ag fadhiisano tartiib inuu la hadlo way kaas marka waa walad naareed way walad fiican ma aha waalidka laga dadaalo waa loo daran yahay Soomaaliya hadda waalidka aad baa lagu daran yahay hooyada gaban ma arkay oo gabadheeda wax u sheegan karin ka cabsanba oo hooyo wiilkan wax u qabaan dhig karin oo inuu soo meel marso u macdayso meel badan duq soo marto halkaan kala rumin karo wiilkii ya aabiyon kula dhaqaaqi karin oo kula dhiran karin halka maradu waalid kula gaaray sheekh naargala tahay isdaba qabo
aabbahaba mar hadduu gaadho inuu kuu caddayn waayo wuxuu doonaya kuu sheegto uu kari waayo oo kaa cabsanayo wuxuu kaaga cabsan waa shar uu kugu ogyahay wey iyo qallayf iyo adaygu kugu ogyahay hadduu kugu ogyahay inaad tahay nin dabacsan oo naxariis badan oo u jajaban wax kastoo kuu sheegan laha hala iska ilaaliyo wa kaana muttaki'an nabigu waa dangeegay ama waa janjeeray dhinac buu u fadhiyey fajalasa markaasu nabigu soo fadhiistay salmugiibu u fadhiistay faqaala wuxuu yidhi alaa wa qawla zuur hadalka beentaana iska ilaaliya qawla zuur hadalka beenta ah oraahda beenta ah ee barabagandada ama maqtagaca beenta ah iska ilaaliya wa shahaadatu zuur cuna waxay leeyihin waa dikru khaasi bacda alcaam lanna qawla zuur baa caamsan shahaadatu zuurna waa qayb ka mid ah qawla zuurka hadalka beenta ah maqlatigi beenta baa ka mid ah oraahda beentaad ii sheegta ka mid ah ama runkaaga qadan waxaad ii sheegtay baa ka mid ah wixii quraan akhrisa waa lagu akhriyey qur-aanka waa la saari ama ha la qaybiyo ama aayado goosgoosoo ka mid a ha la akhriyo qur-aanka waa la saarhayaa wadaadka hawlo kale haddii kuwas naban yihiin hawlaha la caddeey laakiin duqu waan xanuunsanaya adeeru quraan isaa waa la saari qur-aanka in isku daaweeye waa shay bannaan weeye sunnaa haddii 2 mar la saari iyo haddii 5 mar la saari iyo haddii subax khamiisa lagu akhriyo waxba ma diidan yani waxaanu diidana waxaa weye hawlahan kaleedu la wado weeye ama quraan ilaahay kalaam ee ruux la saaraya cid diidan ma jiraan masale khilaafiya u ahay cinda salaf laakiin waagi dambe culimadu waxay u badnaayeen in quraanka la isku daaweyn karo oo ruqyahan loo isticmaali karo laakiin hal xirsa laga dhigiyo hal jallaadi iyo hawlihii iyo intaas hiblaayo soo sheegtay alla waxeeyo buncad hal raaciy iyo cayn cad baa lagu daray hawlihi taqaaniina khaaska ahaa baan diidanahay ee kitaabka ilaahay ummadda lagu akhriyo cidna ma diidan فما زال النبي كمزل يكررها إنه العلنية ورهضها ضمبي ألا وقول زور حتى قلنا إلى أن نلي ليته الله هاي سكت النبي سمع الله النبي مسكا أمس كل علي نبي يعني حمانته إليه أبيك إليه هاي النبي درنسينية marka saxaabadu markay fahmeen bay nabigu uga badaalay muska aamusaba yani waan fahanna wax macmulu ninka laga sheegay ninka xasuloonaa dirinta daaqahay in badan baa idin sheegay fuurida ka ayri waayay maxay waradiga fuurida ka ayar arigu xasuloon daaqahay yu fuurida dul istaag maxay waradiga fuurida ka ayar ha xasilan lahaybuu ha xasilan lahaybuu nabigu wuxuu leeyahay fahmaana mooyeen dan kale uu kale yahay ma jiro wuxuuna dareensanayay xumaanteeda inta leegtay وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس ضدك هذه اللسين لها بدعواهم بسبب دعواهم وحي الشيكتين وربح الوسين لها أما بدعواهم ما ادعوا وحي الشيكتين لسين لها كتابك أنا اسكا قابل قولوا أنا له هو بابورك أنا شري سوء هو نينك سموت هذه اللي وحي الشيكو نين رشاوة لو حوري ساسة حلوه ريب والريب المحكر ريبين نمبو قيل دع جريب التونسين يعني مركحون ياسم محمد دايين بول المهم لدعى الناس ضد شيغان لها دماء رجال ضد يقود بشيغان لها نينك شيء اللي دليا لها بقول انا قاعد كلام مكتيس يوها ان ريب البقاء كوبا اللي دلي ريب البقاء ريب الكفار بدنا محمد كسبت دغاي انا قاعد كلام ديكستا لدعى الناس وحي شيغان لها دماء رجال ضد يقود بشيغان لها واموالهم يا مالكود ولكن اليمين دارته وحي سارنتahay على المدعى عليه ninka wax lagu sheeganay muddaci waa ninka sheeganaya bayana laga rabo muddaca calayhuna waa ninka wax lagu sheeganay lafdigan muslim baa iskale bukhari lafdigiisu wuxuu ahaa law yucta annaasu bidacwaahum ladahaba dimaa'u qawmin wa amwaaluhum hadday dadku waxay sheegteen la siinayo waxaa tegi lahaa dhiigo badan baa dhumi lahaa oo fakan lahaa amwaal badanna waa fakan lahayd wuxuu asagu laakiin leeyahay laakiin alyamiin cala muddaca calayh asagu لفظ بخير رواية بيهقي أيضا صحيحة وعليها بسند جيد لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على محمد